madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomiyay safiirka dawladda Canada ee u soo magacowday Soomaaliya. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalin ka hor waxa uu garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho warqada aqoonsiga kaga guddoomiyay safiirka cusub ee Canada u qaabilsanaan doonto Soomaaliya oo aan deganaansho ku yeelan doonin magaalada Muqdisho. safiirkan oo lagu magacaabo Sara Credia ayaa waxay Canada u qaabilsan tahay ilaa 5 dal oo ku yaala dalalka Bariga Afrika sida Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi iyo Soomaaliya, iyadoo xarunteeda ay tahay Kenya halka wadamada kalena aanay deganaansho ku lahayn. qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa waxay ku sheegtay in sharaf weyn ay u tahay in warqadda aqoonsiga ee safiirnimo uu ka guddoomo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale waxay kula kulantay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Danjire Yuusuf Garaad Cumar. waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu safiir laga soo magacaabo warqadaha aqoonsiga kaga guddoomo gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. waxaa horey madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaashii ku horeeyay ay warqadaha aqoonsiga safiirnimo kaga guddoomi jireen madaxtooyada Villa Soomaaliya, taasoo ah nidaam qayb ka ah shuruucda diblomaasiyadeed ee caalamka u yaala. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari, telefishinka Somali News, Muqdisho.